warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta dhagax dhigay xaafad cusub oo ku soo kordhay xaafadaha Kismaayo. Maxamed Xasan Xiis oo ah wariyaha gaarka ee madaxtooyada Jubbaland ayaa warkan inoo faahfaahinaya. madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa dhagax dhigay dhismaha xaafad cusub oo laga hirgelinayo magaalada Kismaayo. Bilan State waa magaca xaafadan ay ganacsatadu doonayaan inay ka dhisaan magaalada Kismaayo iyadoo xaafadan loo dhisi doono hab casri ah isla markaana ay u dhameystirnaan doonaan dhammaan adeegyada muhiimka u ah bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo sidoo kale adeegyo kale oo nolosha aasaasi u ah. Nuux Cabdiwahaab Maxamed waa maareeyaha shirkadda Kisma Limited waxaana uu sheegay in xaafadan ay u dhameystirnaan doonaan adeegyada muhiimka u ah bulshada isla markaana ay rajeynayaan inay noqoto xaafad wax badan ku soo kordhisa muuqaalka magaalada Kismaayo. madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaa si wada jir u dhagax dhigay dhismaha xaafadan iyadoo madaxweynuhu sheegay in arin lagu farxo ay tahay in ganacsatada iyo sidoo kale qurba joogta deegaanku ay diyaar u yihiin maalgashiga dalkooda. ربنا استعان على ورديه ودين السلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله بركاته اسمها بلعده سنه شركتنا دhisayso Bilan State ilaa waxaan aad ugu sii faraxsanahay culimada masaajidada lagu ogaayay inay qorxinta iyo bilicda iyo dhismaha ka qayb qaataan iyo horumarinta wadanka ficlan shirkadan guriyahan dhisaysana waxaan aad u rajaynayaa ilaahayna uga baryaa inuu iyadana ribaxa ay ka rabaan iyo wanaag ka siiyo dadkana ay noqdaan kuwo kamida dhaliyo faa'iidadaas wax badan ay u tarto. waxaa hadda ka hor dhib badan uu ka jiray dadka gaar ahaan dibadda jira gacan aan aamin ahayn bay wax soo dirsanayaan oo waxay ku oranayaan boos ii gad markaas hal boos baad arkaysaa 5 qof 6 qof laga gaday inay helaan marka dadku meel ay dib ugu soo noqdaan iyo guryo dhisan oo sharcigood inaan cid ku haysanin oo kadibna ay talaabo hore u sii qaadaan waxaan isleeyahay wax guul ah dadkiina amaanadoodii ay ku gudan karaan tan marka waxaan isleeyahay waxay horgal u noqonaysaa dadka qurba joogta soo noqodkooda carruurtooda inay la soo noqdaan ay helaan waayo hadda intaan aan arkay waa dhismo mutakaamil oo masaajidkii iskuuladii suuqii yani noloshii ay ku haysteen dibadda ay ka helayaan taa macnaheedu wuxuu keenayaa marka gacan aamina oo culimadii la yaqaano dhul sharciya oo bari lahayn 2 qof oo 200 qof kala laga sii gaday standardkii ay yaqaaneen oo sidoodii oo noloshu ay uga suurtoobi karto cilmuhu ayna oraneen xagee la ugu wadaa waxaan isleeyahay waa wax soo kordhay guula. Maxamed Xasan Xiis Jubbaland TV Kismaayo.